أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي ولالكن أنا نور حسن حتى سورياتين كانال كان مخال برودكشن إن شاء الله ما برنامج كان ديالين وحار وين كل وداغو كورس كابان أي نكبران أي برنامج كلهم مع أدوبي بريمير راش إن شاء الله مخال كان مانتي أنا كبران دونا بريمير راش كوحوي هاي إن شاء الله يقاب كله استعماله با نقول قلنا برنامج كنا وقرين أنت نقول قلنا برنامج كنا حين كعوسن أنا كانال كمخال برودكشن أديت كعوسب تايفلان سبسكرايب سار videogan like saar bal isku daya muuqaalkan like-tiisa inaad gaarsiisiin 500 oo like ah aad u mahadsantihiin dhammaantiina marka barnaamijkan lagu magacaabo Premiere Rush loo isticmaalo dhanka muuqaal samaynta yaa isticmaali karo waxa isticmaali karo qof walba yaa isticmaali karo haddii aad haysatid telefoon waad isticmaali kartaa barnaamijkan telefonaadka sida Android-ka wuu ku shaqeynayaa iPhone-kana wuu ku shaqeynayaa haddii aad computer haysatidna wuu ku shaqeynayaa sidoo kale telefonaadkan loo yaqaano tablet-ka asigana wuu ku shaqeynayaa marka barnaamijka linkida aad kala soo degi lahayd haddii computer ahaan lahaa iyo sidoo kale telefoon hadduu ahaan lahaa Google Play Store-ka Android-ka waxaan kula wadaagi doonaa insha Allah qaybta hoose videoga description-ka ka fiiri meesha aad kala soo degi lahayd sidoo kale waxaan kugu pin gareyn doonaa insha Allah comment ugu hore aan kugu pin gareyn doonaa marka almost ani hadda waxaan isticmaalayaa Premiere Rush version-ka dhanka computer-aadka aan isticmaalayaa haddii aad telefoon aad haysatidna waad la socon kartaa kooriskan markaad ku shubatid application-ka Premiere Rush waad soo furaysaa si aynu u isticmaalno marka barnaamijka markaad soo furtid interface-kiisa tan ayuu eg yahay Premiere Rush-ka waxaan u baahanahay ugu horeyn talaabadeen ugu horeyso inaynu sameyno project cusub ama mashruuc cusub waxaad ku dhufataa marka meeshan ay ku qoran tahay create a new project aad ku dhufanaysaa marka sidoo kale qaybtan hoose wuxuu ku leeyahay marka ay ku qoran tahay untitled macnaheedu waxay tahay project-geena magac dhan ma lahan marka project-gaaga marka magacaad rabtid ayaad ula baxaysaa marka almost marka project-gaada markaad magac u samaysatid waxaad soo doorataa marka waxyaabaha aad u baahan tahay inaad edit gareysid ayaad soo dooranaysaa sida muuqaalada codadka iyo sidoo kale sawiraanta ayaad soo dooranaysaa almost markaan hadda folder waxa ii yaala qaybtan desktop-ka waxa uu qoran marka project 01 ay uu qoran marka folder-kan ayaan soo furayaa sidoo kale marka waxaad samayn kartaa marka muuqaalada hal mar ayaad soo wada dooran kartaa intaad u baahan tahay inaad edit gareysid almost marka midna waad u soo dooran kartaa ani saddexda muuqaal ayaa igu diyaarsan meeshan folder-kan saddexdood ayaan soo dooranayaa marka waxyaabaha aad u baahan tahay inaad edit gareysid markaad soo dooratid qaybtan hoose waxaad ku dhufataa create ayaad ku dhufanaysaa si aynu gudaha u galno marka barnaamijka qaybta gudaha markaad u soo gashid sidan ayuu kugu soo furmi doonaa wuxuu ku soo bandhigi doonaa marka dhammaan muuqaalada aad soo dooratay uu ku soo bandhigi doonaa runtii dhanka interface-kiisa waa clean aad u qurux badan yahay haddii aad telefoon aad ka isticmaalaysid barnaamijkan Premiere Rush toolishan dhankan ayaa waxaa ku imaan doona qaybta hoose ku imaan doono wax kale oo ku kala duwan yihiin ma lahan marka sidoo kale talaabadeena kala xigta waxaanu sameyn doonaa inaynu iska saxno project-geena cabirkiisa ama sequence wax loo yaqaano qaybtan waxaad imaataa marka icon-kan aad imaanaysa ay ku qoran tahay change sequence aspect ratio aad imaanaysaa kadib marka afartan aspect ratio ama afartan size ayuu ku soo bandhigayaa qaybtan ay ku qoran tahay 16:9 waa midka ugu caansan oo most popular-ka loo isticmaalo size-kan dhanka TV-yada muuqaalada laga soo sii daayo sidoo kale size-kan kale ay ku qoran tahay 9:16 waa midka portrait-ka loo isticmaalo dhanka TikTok iyo sidoo kale Instagram-ka almost marka size-kaad u baahan tahay inaad ku edit gareysid muuqaalkaaga ayaad soo dooranaysaa almost hadda ani waxaan dooranayaa marka midkan ay ku qoran tahay 16:9 ayaan dooranayaa marka project-gaaga xitaa markaad edit gareysid muuqaalkaaga kadib waad bedeli kartaa cabirka wax dhib ah ma lahan marka intaan u gudgalin edit gareynta muuqaalka waxaynu sharxaad yar ka bixin doonaa toolisha meeshan noo saaran qaybtaan ka bilaabi doonaa insha Allah calaamadan plus-ka ay ku qoran tahay markaad soo furtid add media project-gaaga waxyaabo sawirooyin iyo muuqaalo kale aad ku soo dari kartaa sidoo kale title ayaad u samayn kartaa codad ayaad ku soo dari kartaa cod ayaad hadda iska duubi kartaa sidoo kale qaybtan kale markaad soo furtid icon-kan aad u jeedin icon-kan waa qaybta project-gaaga waay waxyaabaha mashruucaada uu ka kooban yahay muuqaalada hadda meeshan noo saaran dhammaantooda inta ay yaalaan marka sidoo kale qaybtan kale markaad fiirisiin calaamada manqaska ay ku qoran tahay waxa waa split waay muuqaalkaada ayaad ka jarjari kartaa sidoo kale calaamadan kale waxa waa duplicate waay muuqaalkaaga ayaad ka badin kartaa sidoo kale icon-kan kale waxa waa delete waay muuqaalkaaga waxyaabahaadan u baahnayn ayaad ka delete kartaa icon-kan kale meeshan saaran waxa waa muuqaalka iyo sidoo kale codka ayaad kala saari kartaa waad kala bixin kartaa haddii aan click ku siiyo hadda waad u jeedinayaan fila inkastoo hadda muuqaaladan waxba cod aysan wadan haddana muuqaal cod leh haddii aad soo gelisid Premiere Rush waad ku kala saari kartaa sidoo kale qodobkan kale ugu dambeeya waxa lagu magacaabo control track ayaa lagu magacaabo haddii aad click ku siisid
waxyaabo badan ayaa kusoo furmi doona marka qaybta timeline-ka sida muuqaalkaaga hidden aad ka dhigi kartid, sidoo kale muuqaalka haddii cod uu wato inaad codka aad ka xiri kartid, sidoo kale muuqaalka inaad loo gareyn kartid traagaad u baahan tahay inaad loo gareyn kartid. marka qaybtan kale markaad fiirisiin qaybtan ugu hooseyso waxa waaye crop and rotation waxyaabaha la xiriira waynu baran doonaa. sidoo kale iconka kale kusoo xig waxaa lagu magacaabaa audio waxyaabaha codka la xiriira ayaad ku maamuli kartaa. iconka kale ku xigan waxa waaye speedka waa dhanka xawaaraha muuqaalka slow motion ama fast motion. midka kale ku xigan waxa waaye color waaye waxyaabaha color correctionka aad ku sameyn kartaa. kan kale waxa waaye waxyaabaha effective waaye sida transitionka iyo waxyaabaha la halmaalo waaye. iconka ugu koreyn waxa waaye titles aad ka sameyn kartaa muuqaalkaaga. marka qaybta editingka waxaynu ka bilaabi doonaa insha Allah qaabka loo jarjarayo muuqaalkaaga ku saaran timeline-ka. qaybtan waxa lagu magacaabaa timeline ayaa lagu magacaabaa. marka calaamadan waxa lagu magacaabaa indicator ayaa lagu magacaabaa tilmaame meeshaad joogtid ay ku tilmaamaysaa qaybta preview-ga ama shaashada laga daawanayo muuqaalka. kadib muuqaalkaaga aad daawanaysaa meeshaad u baahan tahay inaad jirtid aad tagaysaa. almost markaad imaatid qaybta manqaska aad click ku siin kartaa ama shortcut ahaan waxa waaye S waaye. waad u jeedinayaan filaya muuqaalkeenaad sidaan aynu ku jarnay. markaad rabtid inaad jarjartid muuqaal adigoo isticmaalaya programka Premiere Rush muuqaalka aad dooranaysaa shortcutka waxa waaye S waaye. S aad taabanaysaa sidaas aad ku jarjari kartaa ama iconkan oo splitka meeshan ku saaran ayaad mar walba click ku siinaysaa. ujeedinayaan filayaa sidaan aynu ku kala jarjari karnaa muuqaalkeena. marka sidoo kale qodobkeena kale insha Allah waxaynu baran doonaa anagoo isticmaalayna programka Premiere Rush qaabkee marka waxyaabaha aadan u baahnayn muuqaaladaada looga saari karaa. tusaale ahaan waxaynu u baahannahay clipkan inaynu delete gareyno aynu u baahannahay clipka aad dooranaysaa kadib waxaad ku dhufanaysaa iconka meeshan ku saaran delete-ka aad click ku siinaysaa. ujeedinayaan filayaa hadda clipkii sidaan ayuu ku baxay. haddii aad u baahan tahay inaad soo celisid calaamada meeshan ku saaran waxa waaye undo waaye click aad ku siinaysaa sidaan ayuu kusoo laabtay clipkii waad ujeedinayaan filayaa. ama sidoo kale waxaad u delete kartaa clipka aad dooranaysaa keyboardkaada waxaad ka taabanaysaa delete iconka aad ka taabanaysaa sidaan waad u delete kartaa waad ujeedinayaan filayaa. ama sidoo kale highlight gareyn intaad u baahan tahay inaad tirtirtid kadib trash iconka ama delete-ka aad click ku siinaysaa sidaan ayaad u tirtiri kartaa. marka waan rajaynaa dhammaantiin aad wada fahanteen qaabka loo tirtiraayo waxyaabaha aadan u baahnayn loogu saarayo muuqaalkaaga. marka sidoo kale adigoo isticmaalaya programka Premiere Rush waxyaabaha aadan u baahnayn muuqaalka waxaad ugu saari kartaa muuqaalka inaad soo crop gareysid. hadda muuqaalkan markaad fiirisiin oo kale geesaha markaad imaatid falaar kale ayaa kuu soo bixi doonto labada dhinac ayaad ka soo yareynaysaa kadib muuqaalkaaga sidaas ayaad waxaad ugu sameynaysaa durationkii aad ugu soo yareyn kartaa ama waqtiga muuqaalka sidaan ayaad u soo yareyn kartaa. marka sidoo kale waxaynu baran doonaa qodobkeena kale insha Allah qaabka loogu soo daraayo projectiga wax loo yaqaano transition af Soomaaliyan waxa la kala gudbin. waxaad u isticmaali kartaa marka laba muuqaal laba sawir ama muuqaal iyo sawir meesha iskugu imaanayaan ayaad qurxin kartaa. almost hadda markaan play aan dhaho waad ujeedinayaan filaya waxba transition uma dhexeeyo muuqaalkan kale si direct ay u soo galayaa. marka qeybahan ayaad u sameyn kartaa qeybaha uu ka kala jaran yahay muuqaalka transition ayaad u sameyn kartaa. marka si aad transition aad u sameysid waxaad imaataa iconkan ayaad imaanaysaa oo effectiga aad soo furaysaa. kadib meeshan transitiono badan ayaa kugu diyaarsan midkii aad jeceshay aad soo dooranaysaa. tusaale ahaan hadda dissolvigan oo kale markaan soo jiido waad soo jiidaysaa adigoo left click haya haddii aad computer aad isticmaalaysid kadib meeshaad u baahan tahay aad ku daraysaa. hadda xoogaa qaybtan waxaad sameyn kartaa timeline-kaaga ayaad kasoo weyneyn kartaa waadna ka yareyn kartaa. haddii aad telephone aad ka isticmaalaysid marka labadooda farood u isticmaal timeline-ka. almost marka hadda aynu play gareyno transitionka aynu kusoo darnay aynu isla wada daawano. waad ujeedinayaan filayaa transition oo hadda waxaan kusoo daray dissolve ayaan kusoo daray. marka haddii aad u baahan tahay inaad ka bedeshid transitionkii aad kusoo dartay oo kale waad dooranaysaa transitionka delete ayaad keyboardkaada ka taabanaysaa. hadda transitionkii waynu ka tirtirnay tusaale ahaan waxaynu kusoo daraynaa transitionkan kale ayaan kusoo darayaa waan soo jiidayaa meeshaan u baahanahay muuqaalka inuu ka kala jaran yahay imaanaya waan ku deynayaa. aynu play gareyno marka muuqaalkan asigana waad ujeedinayaan filaya waa qaab qurux badan. marka transitiono badan ayaad kusoo dari kartaa muuqaalkaaga mar walba muuqaalkaaga meesha uu ka kala jaran yahay ayaad imaanaysaa kadib transitionkii ku cajabiyay ayaad kusoo daraysaa. marka sidoo kale qaybtan kale markaad fiirisiin transitionka durationkiisa waad badin kartaa waad yareyn kartaa. automatic ahaan 0.50 second ayuu saaran yahay waad ka badsan kartaa waad ka yareyn kartaa.
almost marka defaultigiisa aynu ku isticmaali doonaa insha Allah transitionada duration ka saaran marka adigoo isticmaalaya programka Premiere Rush ka qaabkan aad ugu dari kartaa muuqaalkaaga transition meelaha aad ku dari kartid waxa waaye meelaha uu muuqaalkaaga uu ka kala jaran yahay arajana marka dhamaantiin aad wada fahanteen qaabka loogu soo dari karo adigoo isticmaalaya programkan Premiere Rush projectigaaga transition marka sidoo kale qodobkeena kale insha Allah waxaanu ka hadli doonaa qaabka loogu soo darayo projectigaaga title ama filimkaada qaabka qoraal aad title aad ugu sameyn kartid marka meeshaad u baahan tahay inaad title-ka aad ku soo dartid ayaad imaanaysaa kadib waxaad imaataa marka toolkan tida oo title-ka ayaad imaanaysaa haddii aad telephone aad ka isticmaalaysidna programka waxyaabahan toolishan qaybta hoose ay ku saaran yihiin marka almuhim qaybtan tida title-ka aad soo furaysaa kadib meeshan waxaa ku diyaarsan waxyaabo badan oo animation sameynaya ku diyaarsan runtii oo aad u qurux badan ayaa ku diyaarsan marka title-kii aad isleedahay title-kan uu ku qurux badan yahay muuqaalkaaga ayaad soo dooranaysaa drag and drop ayaad sameynaysaa waad soo jiidaysaa meeshaad u baahan tahay inaad ku dartid ayaad keenaysaa marka title-kaaga si aad ugu bedeshid waxyaabaha qoraalka aad u baahan tahay title-ka ayaad click ku siinaysaa almost marka waxaad ku qoraysaa waxyaabaha aad u baahan tahay aad ku qoraysaa marka waxyaabaha aad u baahan tahay markaad ku qortid qaybtan waxaad soo furtaa marka edit-ka aad soo furaysaa adigoo jooga qaybta title-ka marka farta inta aad ka bedeli kartaa fartaad u baahan tahay aad u isticmaali kartaa sidoo kale farta haddii ay leedahay wax loo yaqaano family bold italic waxyaabaha inta aad ka bedeli kartaa marka almost waxyaabaha properties-ka la xiriira farta inta aad ka bedeli kartaa sida size-ka farta iyo color-ka farta iyo outline-ka shadow-ga waxyaabo badan inta aad ka bedeli kartaa marka waxyaabahan on deeply uma sii gudgali doono insha Allah idinka idin deyn doonaa almost marka qaybtan aad ka edit gareyn doontaa waxyaabaha farta aad qoraalka aad rabtid inaad sameysid qaybtan aad ka edit gareyn doontaa almost marka hadda aynu isla wada daawano qoraalka aynu sameynay waad ujeedin ayaan filayaa muuqaal production haddii aad u baahan tahay marka meel gooni ama screen-ka inaad ka dhigtid oo kale drag and drop ayaad sameynaysaa meeshaad u baahan tahay ayaad ka dhigaysaa sidoo kale waad yareyn kartaa marka waan yareynayaa qaybtan hoose aan keenayaa si muuqaalkeena u qurux badanaado marka waxaan rajaynayaa dhammaantiin inaad wada fahanteen qaabka adigoo isticmaalaya programka Premiere Rush loogu sameynayo muuqaalkaaga title sidoo kale luwathaad ahaan waad u isticmaali kartaa marka sidoo kale qodobkeena kale insha Allah waxaynu baran doonaa qaabka loo sameeyo wax loo yaqaano color correction muuqaalkaad u baahan tahay inaad color correction aad ku sameysid ayaad dooranaysaa kadib waxaad soo furtaa marka icon-kan color-ka ayaad soo furaysaa meesha marka waxaa kugu diyaarsan preset ayaa kugu diyaarsan waxyaabo colors oo shirkadda Adobe ay soo diyaarisay qaybtan Adobe Premiere Rush waxyaabo colors ayaa ku diyaarsan marka filimkaada color-ka aad u baahan tahay aad saaran kartaa waxyaabaha meeshan ku diyaarsan marka waxyaabo colors aad u fara badan ayaa ku diyaarsan meeshan color-kii aad u baahan tahay aad isticmaali kartaa marka ani hadda color-kan ayaa cajibiyay color-kan ayaan isticmaalayaa fogiis sidaan ayuu ahaa after color-kan markaynu saarnay sidaan ayuu noqday before sidaan ayuu ahaa afterna sidaan ayuu noqday marka sidoo kale haddii aadan u baahnayn waxyaabahan inaadan isticmaalin waxaa soo furtaa qaybtan edit-ka soo fur meesha marka waxaa kugu diyaarsan waxyaabaha basic-ga exposure-ka contrast-ga highlight-ka iyo sidoo kale shadow-ga temperature-ka waxyaabaha color correction-ka lagu sameeyo dhan inta ay kugu diyaarsan yihiin inta aad ka bedeli kartaa sida muuqaalkaaga aad u baahan tahay inaad ka dhigtid color-kiisa ayaad u sameyn doontaa insha Allah marka waan rajaynayaa dhammaantiin inaad wada fahanteen qaabka loo sameeyo color correction adigoo isticmaalaya programkan Premiere Rush qaybtan color-ka ayaad soo furaysaa kadib preset-ka aad u baahan tahay aad isticmaali kartaa ama qaybtan edit-ka soo fur waxyaabaha color-ka aad u baahan tahay inaad ka bedeshid sida exposure-ka oo kale iyo waxyaabaha saturation-ka waad ka bedeli kartaa marka waan rajaynayaa dhammaantiin inaad wada fahanteen qaabka loo sameynayo color correction adigoo isticmaalaya programka lagu magacaabo Premiere Rush marka sidoo kale qodobkeena kale insha Allah waxaan u gudbi doonaa qaabka loo sameeyo wax loo yaqaano slow motion iyo sidoo kale fast motion marka slow motion iyo fast motion si aad u sameysid muuqaalka aad u baahan tahay inaad ku sameysid ayaad soo dooranaysaa kadib muuqaalka aad u baahan tahay inaad slow motion iyo fast motion aad ku sameysid markaad soo dooratid waxaad soo furtaa marka icon-kan ay ku qoran tahay speed-ka ayaad soo furaysaa meeshan waxaad ka sameyn kartaa marka muuqaalkaaga orod ayaad ku furi kartaa ama muuqaalka speed-kiisa ayaad ka soo dhimi kartaa marka muuqaalkeena hadda si aan slow motion iyo sidoo kale fast motion aan uga dhigno qaybtan waxaad imaataa marka rank speed-ka ayaad imaanaysaa muuqaalkeena hadda waa normal muuqaal speed uu ku furan yahay ama slow motion ma ahan marka si aad slow motion aad uga dhigtid mar walba muuqaalku isku soo aruuro uu yaraado fast motion waa mar walba muuqaalku uu kala baxo uu dheeraadana slow motion waa marka qaybtan ayaad ka sameyn kartaa
almost marka waan rajaynaa hadda muuqaalkeena waxaanu ka dhignay fast aynu ka dhignay isla wada daawano waad ujeedin ayaan filayaa oo speed ayaan ku furay hadda muuqaalka marka qaybtan ayaad ka samayn kartaa slow motion iyo sidoo kale fast motion waan rajaynaa marka dhammaantiin aad wada fahanteen qaabka loo sameynayo slow motion iyo sidoo kale fast motion adigoo isticmaalaya programka Premiere Rush marka sidoo kale qodobkeena kale insha Allah waxaanu baran doonaa qaabka muuqaalkaaga geesaha meel walba aad u baahan tahay afarta koono looga soo crop gareynayo marka si aad muuqaalkaaga crop aad ugu sameysid waxaad imaataa iconkan hoose ugu dambeeya oo cropka iyo rotationka aad imaanaysaa marka muuqaalkaaga afarta koono waad ka soo jarjari kartaa qaybtan topka oo kale oo ujeedinayaan filay qaybta sare ayaa ka soo jarmaya muuqaalka buttonkan waxa waaye qaybta hoose waaye waad ka soo jari kartaa sidoo kale haddii aad u baahan tahay leftiga oo kale dhanka bidixda inaad ka soo jartid sidoo kale haddii aad u baahan tahay dhanka right-ka inaad ka soo jartid marka muuqaalkaaga inta aad ka jarjari kartaa afarta koono ayuu ku siinayaa programka Premiere Rush meel walba meeshaad u baahan tahay aad ka jari kartaa haddii aad u baahan tahay cinematic oo kale inaad ka dhigtid qaybta topka aad ka soo jaraysaa xoogaa yar sidoo kale qaybta badhankana oo hoosena wax yar aad ka soo jaraysaa sida black borders wax loo yaqaan ayaa sameyn kartaa borderska kori hoos aad ka soo jarjari kartaa marka adigoo isticmaalaya programka Premiere Rush muuqaalkaaga geesaha dhankaad u baahan tahay waad ka soo crop gareyn kartaa adigoo isticmaalaya toolkan cropka gees walba aad ka soo crop gareyn kartaa marka course-ka intaan soo gabagabeyn saaxiibayaal waxyaabaha codadka la xiriira sida sound effect-ga iyo sidoo kale waxyaabaha music background-ka iyo sidoo kale codka qofka caadiga ah idinka idin deen doonaa trackyadan hoose ay imaanayaan sababtee course-kan waxaan diyaarinayaa bir Ramadan ayaan diyaarinayaa marka waxyaabaha codad ma sameyn karo marka waxyaabaha codadkaada markaad ku soo dartid projectigaaga ama mashruucaada muuqaalkaaga waxyaabaha codadka la xiriira dhankan toolkan soundiga aad soo furaysaa volume-ka haddii aad u baahan tahay waad ka yareyn kartaa haddii aad u baahan tahay mute aad iska saari kartaa codadkaaga qaybtan advanced-gan wax badan ayaad ka sameyn kartaa dhanka codadka markii laga hadlaayo sidoo kale programka wuxuu leeyahay dhanka soundiga oo kale hadda ani cod meeshan iima saarno waxyaabaha noise reduction ayuu leeyahay programka marka waan rajaynaa saaxiibayaal qaybta codadka inaad u gudgali doonteen program saas u adag ma ahan insha Allah marka qaybta codadka idinka idin deen doonaa waxaan kusoo gabagabeyn doonaa marka wax walba projectigaaga ku saabsan markaad dhameysid qaabka export loogu sameynayo projectigaaga mashruucaada dibadda loogu soo saari karo marka si aad mashruucaada dibadda aad ugu soo saartid waxaad imaataa marka iconkan ay ku qoran tahay share-ka aad soo furaysaa marka share-ka markaad soo furtid oo kale destination-ka haddii aad u baahan tahay telefonka ama computerka aad isticmaalaysid gudaha in lagu save gareeyo qaybtan localka ha kuu furnaato automatic programka asigaaba kuu furi doono sidoo kale qaybtan sare ay ku qoran tahay file name-ka projectigaaga ama mashruucaada magaciisa ayaad ku qoraysaa marka qaybtan hoose ay ku qoran tahay save tuna waxaa waaye meesha uu ku save gareynayo waa programka waad soo furaysaa markaas si meel gooni aad u dhigatid meeshii ku diyaarsan oo gooniga ayaad dhigan doontaa insha Allah marka qaybtan ay ku qoran tahay markaad soo furtid advanced setting-ka waxyaabo badan ayaad ka bedeli kartaa muuqaalka resolution-kiisa frame rate-kiisa sidoo kale quality-ga waxyaabaha aad u baahan tahay muuqaalkaaga inaad ku saartid ayaad ka bedeli kartaa meeshan marka ugu dambeyn wax walba oo ku saabsan muuqaalkaaga markaad iska soo saxdid waxaad ku dhufanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay export ayaad ku dhufanaysaa marka waxaan rajaynayaa saaxiibayaal course-kan gaaban aynu ku baranayno programkan lagu magacaabo Adobe Premiere Rush loo isticmaalo dhanka muuqaal samaynta inaad ka wada faa'iideysateen walaalkiin Adam Nuur Xasan oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh